dagaal kala jira oo inaad dhigihiina furtaan waxaa jira kuwa la yiraahdo afku dhiglayaal oo dhaqankeedu uu caadaystay dhaqankoodu inuu ahaado Soomaalidu waa xun tahay Soomaaliya saanay ahaan jirtay oo wadankooda wax xun waxaan aynan ka sheegin oo ummadda isku dira oo shaqadooda ay tahay dalkeena inay ibsadaan ma aqbalayna iyaga waxaa jira kuwa la yiraahdo jeeb ku dhiglayaal oo caadaystay inay laaluushka qaataan oo caadaystay dowladnimadu inay ahaato siday ahaan jirtay weligeed si awoodda iyo xoolaha dalka ay ugu tagfalaan kuwa yar si aanan dunida ula tartamin si dhalinyaradiinan halkan u dagaalamayo naftiina inaad bixisaan carruurtiina aan loo helin waddan looga tago oo taariikhdii hore qayb ka ah idinkuna aad qayb ka tihiin taariikhda cusub kuwaasna waa inaan nidhaahdo ma aqbalayno dalkeenna inay horseed u ahaadaan ama maamulaan jeeb ku dhiglayaal waxaa jira kuwa la yiraahdo qalin ku dhiglayaal oo dhaqankoodu noqday iyagoo ajnabi u shaqaynaya inay wax walba xun wadankooda ka sheegaan hadda ka hor baa nagay haddii aadan dalkaada wax u tari karin ka aamus dalkaada kuwa magaalada jooga ama dalka dibaddiisa jooga oo caadaystay inay mishaar ku soo qaataan inay hooyooyinkooda iyo aabahooda caayaan sababtoo ah dalkaada markaad caaydo waxay la mid tahay hooyada iyo aabaha caay haddii uu caqli kugu jiro ama ay karti kugu jirto aad dalkan ku hagaajiso kaalay u soo jeed annagu waa u soo jeednaay kaalay naftaada waxaan rabnaa inaan nidhaahdo idinkana waqtigii lagu soo dhamaa waxaa jira kuwa la yiraahdo urku dhiglayaal oo dhibsanaya dalkoodii inuu hagaago waa ninkii halkan soo istaagay waa buwankeena sharafta lahaa oo noo sheegay sida ugu fiicneed oo aan nagu sheegi karin wuxuu yidhi aniga mucaarad isku ah waa run waa urku dhiglaha aan idin sheegayo bal ninkaan ogolayn dalkiisa inuu hagaago muxuu ogol yahay muxuu ka shaqeeyaa sidee loo talagelaynaa dalka waxaa isku qabiil ah oo hal qabiil ka soo wada jeedaan inta ogol inay dhiigga bixiyaan inta ogol in qabyaalada laga tago inta ogol inaan laaluushka la qaado inta ogol midnimada Soomaaliya inay muqaddas tahay inta ogol in la kala dambeeyo inta ogol ajnabi inaanay noo yeeri karin sida aan dalkeena ugu dhaqmayno inta ogol sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliya in la soo celiyo xataa haddii ay keligiisa in la gaagalo intaas ayaa waxay ka wada tirsan tahay qabiil la yiraahdo qabiilka ummadda Soomaaliyeed qabiilkaas waalidiyaashiisa idinka waaye qabiilkaas hogaamiyaashiisa cusub idinka waaye qabiilkaas cidda badbaadi lahayd idinka waaye Soomaaliya noolaa